السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. walaalkayga muslimka oo walaashayda muslimada ahay waxaan rabaa inaan iraahdo sideed jannada guri uga dhisan kartaa. waxaa hubaala qof kasto inaga mid ah inuu ku fikirayo in ilaahay subxaanahu wa ta'ala jannadiisa uu geeyo aadna aanu jecel lahay allana haynoo geeyo hana inoo fudaydiyo wadooyinkii lagu aadi lahaa. waxaan rabaa inaan ku tusiyo saddex arrimood oo saddexdaba uu rasuulku sheegay sallallahu alayhi wa alihi wasallam xadiid sheekh al-Albani uu saxiixiyay saddexdaba in mid walba oo kamid ah jannada guri looga dhisan karo. bal laba kamid ah wuxuu sheegay guri baa looga dhisan karaa, midna wuxuu yiri qasran fil janna, waa dabaq ama building weyn aan iraahdo ama imaaro weyn oo looga dhisan karo jannada. midka koobaad wuxuu rasuulku sallallahu alayhi wasallam qofkii masaajid ilaahay dartii u dhisa walow dhismaha masaajidku halle ekaado meel oo meesha ay shimbirtu ukunteeda dhigato wax le'eg. shimbirtu ukunteeda meesha dhigata waa meel yar, meesha wax le'egna aad ka dhistidee bana allaahu lahu baytan fil janna, ilaahay qofkaa jannada guriga uga dhisaa. waa number 1. midda labaad rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wasallam qofkii tukada 12 ragcadood oo sunno ah oon waajibka ku jirin, waa salaadaha witrka ah ee salaadaha kale waajibka alla raaciyo, ilaahay wuxuu u dhisayaa bana allahu lahu baytan fil janna, gurigu alla jannada uga dhisayaa. midda saddexaad rasuulku wuxuu yiri sallallahu alayhi wa alihi wasallam qofkii aqriya suuratul ikhlaas wa qul huwa allahu ahad ilaa uu ka dhammaystiro oo suuradaa dhammeeya 10 jeer maalintii ruuxii aqriya, bana allahu lahu qasran fil janna, ilaahay jannada building buu dhisayaa. building waa imaaro, waa guri weyn oo qasriga sida qasriga madaxtooyada madaxdu degan tahay mid ka sii weyn ayuu allah uga dhisaya subxaanahu wa ta'ala. cumar bin al-khattab baa rasuulka ku yidhi yaa rasuulallah, hadday sidaas tahay alleelaha guryo badan baan dhisanaynaa. rasuulkuna wuxuu yidhi sallallahu alayhi wasallam allahu akbar wa atyab, ilaahay baa weyn, ilaahay baana wanaagsan. haddaad dhisataan ood shaqaysato ilaahay waa ku sinayaa, kaa dayicmi maayo. markaa qof walbow ku dadaal inaad guri dhisato. waxaa kaa xiga qasri jannada inaad ka dhisato, cimaaro weyn ama guri weyn aad ka dhisato qul huwa allahu axadun oo 10 jeer aad aqrido insha allahu tacaala. adigoo masaajid la dhisaayo wax ku darsada ma aha macnaheedu keligaa inaad wada dhisto kulligii. waxaa lagu haddaad dhisto waa kasii fiican yahay. haddaad meel yar oo shimbirtu ay dhigato ukunteeda aad ku dartana waa alxamdulilah. 12 ragcadood maalintii tukato sunnahana guri baa jannada. ilaahay subxaanahu wa ta'ala hayna waafajiyo, ilaahayna haynoo fududeeyo acmaasha inaan la nimaadno, allana subxaanahu wa ta'ala hayna wahadeeyo oo wadooyinkeeda haynagu fideeyo. jazaakum allahu khayr. khayrka usii gudbiya walaalihiin, qof walbo walaal ah usii gudbi walaalkaa khayrka insha allah. addaalu cala alkhayri ka faacilihi buu rasuulku yidhi, khayrka qofka dadka tusiyaay wuxuu la mid yahay qofkii tusiyey. man sanna fi lislaami sunnatan xasana falahu ajruha wa ajru man camila biha ilaa yowmi alqiyaama. marka sunnadaa wanaagsan kelima ha loo gaarhsiiyo ummadda, balliquu canii walow aaya, ummadda kalena adiguna gaarhsii. wajazaakum allahu khayr. sala allahuma wasalam calaa nabiyina muxamed wa saxbihi ajmaciin. wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu.